qabanqaabadii ugu dambeysay iyo diyaar garowgii ugu dambeeyay ayaa socota oo ku saabsan ciyaarta finalka ah ee lugto xulalka kala metelaya maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug. waxaan rabaa inaan idin la wadaago 4 dhacdo oo ay ka sameeyeen labadan xul ee Galmudug iyo Hirshabelle iyo sidoo kale diyaar garowga socda amaba sida ay ugu diyaar garoobayso dawladda federaalka ah iyo ciidamada ammaanka si ciyaartaasi loo maamuli lahaa labada xul diyaar garowgooda dowladtuska siyaasadeed ee xubnaha ka soo kala jeeda ay sameeyeen habeenadii la soo dhaafay. laakiin waxaan ku hormaraya dhacdooyinka afarta ah oo ay ka sameeyeen xulalka Hirshabelle iyo Galmudug. marka ugu horeyso waxay ka sameeyeen labadan xul waa labadii lagu bilaabay ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo finalka la ciyaari doono maalin waxayna ciyaartooda ku soo dhamaatay barbardhac min hal gool ah. dhacdada labaad labada kulan ee semifinalka uga soo gudbeen labada xul waxay uga soo baxeen natiijo isku mid ah oo ah rigoorayaal. dhacdada saddexaad labadan koox midkoodna koobkan kuma guuleysanin tan iyo markii la bilaabay ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sanadkii 2016 iyo midda afaraad oo ah inay noqdeen labadii xul ee lagu bilaabay haddana lagu soo gabagabeyn doono tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. si la mid ah tartankii ugu dambeeyay sidan oo kale ayaa dhacday waxaa lagu bilaabay Galmudug iyo gobolka Banaadir iyaga ayaana lagu soo gabagabeeyay waxaana koobka qaaday gobolka Banaadir oo hadda semifinalka ku haray oo finalka soo gudbi waayay. afartaasi dhacdo waxay muujinaysaa in labadan koox ay aqoon isku leeyihiin ama mid kasta oo waqti dheer soo qaatay inuu halkan u yimaado. habeenadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa lagu qabanayay xaflado loogu dabaaldegayo inay finalka soo gaareen laguna dhiirigelinayo kubaddii ay ciyaareen dardaaran iyo talooyin loogu jeedinayay. xafladahaasi oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa u qabanay xubno siyaasiyiin ah oo ku jira xubnaha labada gole ee dawladda federaalka sida hay'adda fulinta oo golaha wasiirada loo yaqaano iyo sidoo kale hay'adda sharci dejinta oo ah golaha shacabka iyo xataa aqalka sare. xafladahaasi waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarino lacageed qof kasta oo ka mid ah xulka. waxaa sidoo kale loo ballan qaaday lacag $10,000 ah in la siin doono haddii koobka ay qaadaan oo sida maamuladoodu ay jecel yihiin mid kasta ay ula doonayo in la geeyo Dhuusamareeb ama in la geeyo Jowhar. ayagana waxay wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyay iyagoo magaalada Muqdisho ku soo bandhigaya dhoolatusyo waxaa loo sameynaya tababaro iyo sidaas oo kale diyaar garow kale oo niyadeed oo ku aadan in ay ciyaarta natiijo wanaagsan ay ka keenaan. dawladda Soomaaliya ayaa dhankeeda waxay wadaa diyaar garow ciidamada amniga ayaa qabsaday muddo kale oo dheeraad in la siiyo sabtidii ay ahayd in ciyaarta dhacdo oo 27 bisha January ah laakiin hay'adaha ammaanka ayaa dalbaday in ilaa Isniinta oo biri ah la gaarsiiyo si ay ugu diyaar garoobaan in ay ammaanka sugaan loo diyaar garoobo taageerayaashii ugu badnaa inay ka soo qayb galaan ammaankana la adkeeyo. madax ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka soo qayb gali doona. waxay Muqdisho ku jirtaa daqiiqadii ugu dambeeyay ee u diyaar garowga ciyaarta finalka ah ee u dhaxaysa Galmudug iyo Hirshabelle. xulka Galmudug ciyaarta finalka ah waxay ciyaari doonaan iyadoo uu ganaaxay yahay tababaro ku-xigeenka xulkaasi Daa'uud Tubaal oo ay xiriirka ku ganaaxeen rabsho ama foodo la sheegay inuu ka sameeyo gudaha garoonka Stadium Muqdisho. haddaba daawade midkee baa taageero u tahay maxaad rajeynaysaa oo xulka ah taageerto u rajeynaysaa maxayse tahay baaqa iyo talada aad u soo jeedinayso xiriirka kubadda cagta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha kuwa maamul goboleedyada ee labada xul ee ciyaaraya iyo hay'adaha ammaanka. aragtidaada qaybta hoose noogula wadaag. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mid kastana waxaan u rajeynaynaa guul insha Allah.